tilmaamayo wasaaradda howlaha guud waxa ay leedahay arrimaha soo socda kow kontaroolka la socodka iyo ogolaanshaha jaangooyada dhulka si jaangooyo u leeyahay marka waa inay howlaha guud ay ogolaato jaangooyadaas labo kontaroolka iyo la socodka labo kaydinta iyo diiwaangelinta dhulka dhismaha loogu talagalay qaranka oo dhan waxaa iska leh howlaha guud ayaa iska leh hadda waxaan u malaynayaa wasaaradda maaliyadda yaa howlahaas macnaha waxa ahay ku lug leh saddex waxay xaq u leedahay inay joojiso wasaaradda howlaha guud dhul kasta oo khilaafsan jaangooyada howlaha guud ayaa xaq u leh inay joojiyaan waxaan se rabaa inaan sheego inaysan wax shuqul ah ku lahayn dhulka maamulkiisa iyo caddayntiisa haddii la isku qabsado laakiin hadda waxaa dhacda dhulka howlaha guud ayaa loo diraa qolyo xataa maxkamadeenna ka mida shuruucda ma akhriyaan howlaha guud ay u diraan dowladda hoose mararka qaar ayadoo soo xiganayso howlo guud wax soo caddaysa lahaad arkaysaa haba yaraatee wax soo caddayn ah howlo guud shuqul kuma leh qaanuunka ayaana tilmaamaya dhulka deegaanka ah haddii la siiyo qof muwaadina shirkadaha ajaanibta ay ka hadli mayno haddii la siiyo waa siisma joogto ah ayuu u leeyahay mugta qofka muwaadinka labo dhulbeereed maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa dhul kasta oo la beero sida uu tilmaamayo qodobka koobaad faqrada koobaad ama dhul la beeri jiray oo mar hore la beeri jiray ama dhul daaqsimo loo isticmaalo iyo calaf iyo caws in laga gurto sida uu tilmaamayo qodobka 13 faqrada afraad sharciga lambar 73 soo baxay 21 bishii 10aad 1975 dhulbeereedka waxaa maamusha wasaaradda beeraha ayaa maamusha tii hore ayaa maamulayay dawladda hoose maamulaysa Soomaa hadda dhulbeereedka waxaa maamula dawladda waxaa maamula wasaaradda beeraha waxaa lagu maamulaa sharciga aan hore u soo tilmaamnay ee kor ku xusan oo hortiina ka muuqda ayaa lagu maamulaa sharciga wuxuu tilmaamayaa in dhulbeereedka milkiyad inuusan ahayn intaynan gaarin tilmaamada iyo maamulka qayxitaanka aan hore ku soo sheegnay waxaa ka muuqata inuu soo gelayo dhulka aan u naqaano goofka annagana waxaan ku soo daraynaa Cabdilxaq oo isna arrimaha dhulka yaqaana soo gal garsoor Cabdilxaq waayahay dhulka goofaha aan hadda u naqaano waxay ku jiraan dhul beeradu macnaha waxa ay uu xisaabsan yahay waxaan rabaa in lagu baarugsanaado marka sharcigaas beeraha wuxuu tilmaamayaa dhulka dhul beereedka waxaa iska leh milkadiisa dawladda iska leh lama milkin karo halka la milkinayay dhulka deegaanka ah dhul beereedka lama milkin karo macnaheedu waxa waaye goof milkiyad ma aha waxaan rabaa in aad loogu baraarugsanaado qofka waxaa la siinayaa ruqsad ilaa 50 sano ah lama gadi karo hase yeeshee intifaaciisa waa la kala dhaxli karaa sida uu tilmaamayo qodobka 12 faqrada 3 ay tilmaamayso qaybta 3 waa dhulxaabaadka waxaa loola jeedaa biyaha baddu meesha ay ku ekaadaan marka aysan baddu kacsaneen baddu waa dogtiin marna waa soo maaxataa marna dib ay u noqotaa markay dib u noqoto ciidda halkay ka bilaabanayso laga bilaabo ilaa 450 ayaa waxaa la yiraahdaa dhul xaabaad dhulkaas macnaha sida ayaa loola jeedaa
dhulxaabeedka waxaa maamula wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda sida uu tilmaamayo qodobka 11aad faqradiisa koobaad waxaa lagu maamulaa sharciga la yiraahdo lambar 5 soo baxay 26 bishii koobaad 1989 sharcigaas ayaa lagu maamulaa waxaa iskala dawladda lama milkin karo sida uu tilmaamayo qodobka 10aad faqradiisa labaad hadda milkiyada ayaa loo isticmaalaa dad baa dhistay oo milkiyad ahaan u dhistay khaladaad badanaa ka jira marka labadaa sida aan sheegnay labadaa dhulxaabeedka iyo dhulbeereedkaba lama milkin karo milkiyad ma jirto dawladda iskale inta kale waa ku intifaac maamulka dhulka muranada dhulka ee ka dhasha dhulxaabeedkaas waxaa xalinaya wasaaradda ayaa xalinaysa sida ku xusan qodobka 11aad faqradiisa 5aad dawladda hoose mana bixin karto muranadiisana kama garnaqi karto waxaa ka garnaqaya wasaaradda ka garnaqayso intaas waxaa la raacsiin karaa oo lagu dari karaa dhulka macdanta laga gurtay ayaa lagu dari karaa asigana sharci cusubaa ka soo baxay wasaaradda batroolka iyo macdanta ayaa shaqo ku leh inta waxaan uga baxaynaa qaybaha dhoolka ayaan uga baxaynaa halkan waxaan rabnaa inaan ka sheegno iyadana gacan ku dhigista dhulka ama waxa loo yaqaano al-istiilaa in gacan lagu dhigo oo qof intuu yimaado dhul aan cidi lahayn ee dawladdu leedahay ee muddo uu deganaado muddadaas uu degan yahay ma ku hanti karaa dhulkaas qaanuunkeena madaniga ma ogola arrintaas sida uu tilmaamayo qodobka 723 faqradiisa labaad ee xeerka madaniga kama mid aha gacan ku dhigistu asbaabaha wax lagu milkiyo kama mid aha sidaa darteed oo basiibo waxba laguma milkin karo oo basiibo milkiyad maaha oo basiibo milkiyad maaha waa intifaac bis hase yeeshee inta qofka uu degan yahay looma cabiri karo lamana sii karo cid kale asiga xaq u leh haddii la cabiraayo sida uu tilmaamayo qodobka 16aad faqradiisa 5aad loo lambarteen ee soo baxay 1980 intuu degan yahay asiga xaq u leh laguma dul cabiran karo cid kalena inta laga kacsho cid kalena lama siin karo laakiin kuma sheegan karo inay milkiyad tahay kuma sheegan karo si aan u ogaano asbaabaha muranada dhaliya waa inaan wax ka sheegno mabaadi'da dhulka xukunta oo lagu maamulo waa inaan wax ka sheegno kow dhulka dawladda ayaa iska leh cidday siisa mooyaane waxaan sheegnay muwaadinka hadday siiso inay joogto u noqonayso labo dhulka deegaanka waa inuu yeesho dhul magaaleedka deegaanka waxaan u jeedaa dhul magaaleedka waa inuu yeesho jaangooyo ay macnaha ay u samayso cidda markaas maamulaysa waa in ay maamusho dhulka dawladdu cid kale ma maamuli karto waa inaan dhulka bannaan laga ganacsan dhulku mar hadduu bannaan yahay lagama ganacsan karo in hadduu dhisan yahay waa in dawladdu koontaroosho hubiso in la raacay sharciga iyo in kale yacni sharciga dhulbixinta in la raacay in kale waa in dawladdu koontaroosho waa in la ciqaabo ciddii ku xadgudubtay sharcigaas waa in loo tababaro farsamo yaqaano iyo khibradlayaal ku filan oo maamuli kara dhulka intaas waa mabaadi'da xukunta dhulka macnaha lagu dhaqo weeyaan aan eegno marka sida hadda xaalku maanta u yahay mabaadi'daas ma la raacaa mase lama raaco mabaadi'daas oo dhan hadda laguma dhaqmo asbaabta oo ah dawladdu hadda dhulka ma laha qof ayaa iska leh meeshaan history yaraa ku jiro 84 dawladdii markay yara ay gacanteeda xoogaa ay dabacday waxaa samaysmay
dhulkana ganacsi iyo wax xasaas macnaha oo macna yeeshay waxa sameysmay guruubo ka ganacsada dhulka oo isugu jira qoliya awood leh iyo hay'adii dhulka lahayd iyo hay'adii dhulka bixinaysay iyo qoliya ka dhaxaya yaa heshiiyey horta markii hore murana ayaa dhacay waa la dagaalamay dagaal yara dhacay waxa odagii markii joogay cali ugaas duqi magaalada xilligaas jiray wuxuu soo saaray 84 in fact way ka dambeysay laakiin waxa la soo saaray in lagala heshiiyo on dadka la xoogin oo yara raali ahaanshooda wax lagu cabiro ayaa la soo saaray dhulkii ayaa dawladdu lahayd iyo dhulkii banaana intaba waxa la siiyay oo awood ku yeeshay goofle iyo soo sharciyeeye soo sharciyeeye wuxuu qaadaha boqolkiiba 50 goofleena wuxuu qaadaha boqolkiiba 50 oo muxuu qabanaa sharciyeeyuhu nool soo saara hadii dhul dawladeed u ahaa hadii kalena wuxuu yaqaanaa sharciyan hay'adda wax sharciyeysa ayuu yaqaanaa lacagtuu bixinaa dukumentigu keenaa qofkana isagu gurigiisa jooga ayaa wax yar macnaha ayaa wixii soo dhan loo keenaya arintaas markay dhacday waxaa gacanta ka baxay dhulkii dawladda ayaa gacanta ka baxay raalaada waqti ay ugu socda jaangooyo dhulku ma laha oo hadda cid jaangooysa macnaa jaangooy maxaa loola jeedaa waa in hay'ad walbaba la sheego meeshan waa degaan meeshan waa ganacsi meeshan waa waa service waa in macnaha jaangooyo loo sameeyo jaangooyaas ma jirto hadda maamulka dhulka wuxuu gacanta ugu jiraa aad ayaa loo ganacsadaa waxa uu jaad dadweynaha dawladda hoose waa markhaati oo kaliya waa loo keensanaa markhaati ka noqonaa laakiin jaangooyinta iyo kulli shaqalku ma laha iyada cabirka naqshadaha wadooyinka danta guud waxaa go'aan ka gaara gooflaha dawladdu go'aan ka gaarmayso dawladda hoose kama gaarto dhulka waxa uu noqday bangiga Soomaalida iyo ganacsiga ugu fiican oo ugu qaalisan uu noqday marka sababtii loo diiday in laga ganacsado waxay ahayd in masaakiinta ay wax heli karaan muuto dhul la siin karo marka hadda qof miskiina dawladda dhulna ma siin karto ilaa maba milkisay asuna ma gadan karo barabalankaas ka jira marka shaqaalaha ka shaqeeya dhulka aqoon ku filan ma lahan taas oo ay u sii dheer tahay hufnaan la'aan haddii ay ku xad gudbaan maamulka dhulka dhul bixinta shuruucda lama kala laguma dabaqo ama lama ciqaabo ama lama xisaabtamo waayahay inta waxaa sii dheer dhul cabir hore lahaa oo inta cabirka la iska tuuro mid cusub la saaro iyadoo goof laga dhigaayo waxaa kale wuxuu ahay dawladda hoose oo aysan gacanta ugu jirin diiwaanadii kaydka dhulka dawladda hoose oon gacanta ku jirin oon lahayn diiwaanadii naqshadii oon gacanta lagu hayn waxaa jira isagana been abuur baahsan hufnaan la'aan ka jirta hay'adaha dhulka baxsha garsoorka xeeraalinta booliiska dhammaan hufnaantoodu ma fiicna sidaas darteed waxaa ka dhashay markaan dhulkii si fiican murankiisii loo xalina ka dhalata xalku muxuu yahay hirgelinta nidaamka taxkiimkan waxaa qaba qaanuunkeena madani ku yaala laakiin laguma dhaqmo sababahan ayay macnaha uu muhiim u yahay taxkiimkan karti la'aanta maxkamadaha dheeraanta procedureka maxkamadaha kalsooni darrada bulshada fulin la'aanta xukunada maxkamadaha intaasoo dhanba waxay macnaha khasab ka dhigayaan in taxkiimka la isticmaalo oo isaga laga dhigo la siiyo priority koowaad la siiyo dib-u-habeynta hay-adaha dhulka ku lug leh sida dawladda hoose garsoorka xeeraalinta booliiska waa in dib-u-habeen lagu sameeyo raadinta diiwaanadii dhulka iyo naqshadihii
ayadoo la ururinayo lana kaydinayo in la sameeyo commission ama mufawadiyo maamusha dhulka in lala dagaalamo been abuurka iyo in dib u habeyn lagu sameeyo sharciyada dhulka waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم aad u mahadsan yahay garsoore saalax waqtigii loogu talagalay waa hal daqiiqo ku darsaday waa okay laakiin ma sha Allah waxaan gelaynaa dooda dhinaceeda kale oo ah qareen waxa soo jeedinaya qareen dudaaye dooda dhinaceeda kale waxay ku saabsan tahay sharciyada lagu maamulo dhulka bixinta dokumentiyada lahaanshiyaha dhulalka waa sidee hadda iyo arrimaha xalka uu hayo billahi tawfiiq بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد مدن يالي مروين أنواع إذن كرسارين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب سيدا باكارك كرتان شاشة أنيقو حربا إنان سيرو كوبان وغهد الله شرعية دولك اللغو معامله iyo sida ay tahay bixinta dokumentiyada waxaan si gaar ah waxaan ku hormari doonaa sharciyada lagu maamulo dhulka ayaan ku hormari doonaa si gaar ah waxaan uga hadli doonaa dhulka waa tiin loo qaybiyay dhul beereed iyo dhul xeebeed iyo dhul deegaan loogu talagalay iyo dhul suuqyo waa tii loo qaybiyay dhulka magaalada ayaan si gaar ah uga hadli doonaa sharciyada ku saabsan sharciyadu way si kala duwan yihiin sharciyo nool iyo sharciyo oo la baabi'iyay ay kala yihiin waxaan soo bandhigi doonaa kale bismillaahi raxmaani raxiim baabuurtan soo socota taargooyinka leh waxaa laga codsanayaa dadka wato in ay baakinka hadda ay ku jiraan waxay ku aadan yihiin albaabka inay ka wareejiyaan AE 35 oo premier ah AG 79 Evershan oo Allion ah AG oo 97 iyo 7 baabuurtaas dadka iska lahaa haddii ay joogaan halka hadda ay yeelaan ha ka wareejiyaan waa mahadsantihiin sharciyadu laba nuuc waayay kuwa waa la baabi'iyey oo waa laga guuray oo hadda active ma ahan kuwana waa active oo weli waa dhaqangal waxaan sheegi doonaa kaliya kuwa dhaqangalka ah oo mudan in lagu dhaqmo sharciyadaas sidaba hadda ka muuqata shaashada saddex nuuc ayay iskugu jiraan waxa ugu horeeyo dastuurka ku meelgaarka waxa ku xigo xeerka madaniga Soomaaliya waxa ugu dambeeya sharciyo gaara oo dhulka si gaar ah ugu saabsan waxaan ku hormaraynaa dastuurka sidaaba ka warhaysaan dhulka marka la leeyahay waxaa mar walba ku gadaaman ama ku teedsan milkiyadda nuucyadeeda kala duwan ama xuquuqda asaasiga ah ayaa yacni ku tacalluqda dastuurkana sidaad ogtihiin asiga ayaa damaanad qaaday xuquuqda asaasiga ah sidaas darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo soo hadal qaado dhulka gaar ahaan wuxuu uga hadlay laba cutub oo kala ah cutubka labaad gaar ahaan qodobka 26aad laba arrimood oo muhiim ah ayuu sheegayaa arinta koowaad uu sheegay waxa waaye in muwaadinku uu milkin karo hanti gaar ahaan yacni dhulkana waxaad ogtihiin inuu ka mid yahay hantida arinta labaad oo muhiimka ah oo qodobka 26aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka sheegaya waxa waaye
in hantidaas dan guud awgeed loola wareegi karo haddii loola wareegana oo muwaadinku xaq u yeelanayo migdhow cadaalada waxaa sidaas oo kalantood ka hadlaayo cutubka saddexaad dastuurka ku-meelgaarka gaar ahaan qodobka 43 wuxuu ka hadlayaa dhulka iyo bii'ada iyo maxaan idhaahdaa hantida oo dhan uu ka hadlayaa wuxuu sheegayaa arrimo ay ugu muhiimsan yihiin in dawladda laga rabo inay yacni ay samayso siyaasad qaran oo maxaan idhaahdaa dhulka lagu maamulo qodobkaas dhulka wuxuu u ictiraafay in uu yahay nolosha qofka muwaadinka ee inuu aasaas u yahay uu ictiraafay okay labadan qodob ee dastuurka ku jiro dastuurku waa yacni waa aasaaska shuruucda ama yacni waa yacni beeska shuruucda kalaantood waayay kaliya wuxuu sheegay dastuurku mabaadi ahaan ayuu u hadlay labadaas qodobood ayaana ka hadlaayo sidaas darteed mar walba tilaab kastoo la qaadaayo labadaas qodob waa in maanka lagu hayaa waxaan rabaa xeerka habka madaniga Soomaaliya oo hadda active-ka sharci lambar 37 xeerkaas asigana maadaama xuquuqda madaniga uu sheegayo ama xuquuqda milkiyadeed asugu uu saldhig u yahay dhulkana maxaan idhaahdaa xuquuq milkiyadeed ay ku saabsanaan karto asigana wuxuu ka hadlay milkiyadaha iyo dhulka sida loo milkin karo sida loo diiwaan gelin karo sida maxaan idhaahdaa milkiyada loola kala wareegi karo gaar ahaan waxaa si gaar ah loo fiirin karaa qodobka 723 qodobka 729 ilaa 740 qodobada 938 ilaa 958 si gaar ah ayaa loo fiirin karaa qodobadaas waxay yacni sheegayaan yacni milkiyada dhulka nooca ay tahay wasaa'isha wax lagu milkin karo maxaan idhaahdaa habka loo diiwaan gelinayo waxyaabahaas ay ka hadlayaan okay xeerkan marka dastuurku wuxuu yahay xeer asaasiya laakiin qaanuunka madaniga waxa waaye xeer guud waaye waxaa nooca saddexaad oo noqonaya sharciyada gaarka ah sharciyada gaarka ah waxa loola jeedaa sharciyada si gaar ah dhulka u quseeyo sharciyadaas waxaan ka soo sheegnay waxa hadda dhaqangalka ah 4 sharci yacni ma ka hadlayno sharciga beeraha ma ka hadlayno dhul xeebeedkana ma ka hadlayno laakiin dhulka oo magaalada gaar ahaan dhulka deegaanka ee dawladda hoose hadda ay bixin karto 4 sharci ayaa gundhig u ah sharciga waxa ugu horeeya loo yaqaan sharci lambar 41 ee soo baxay 13 bishii 9aad 1973 sharci lambar 41 ee soo baxay 13 bishii 9aad 1973 wuxuu si gaar ah ugu saabsan yahay dhulka magaalada yacni waa sharciga dhigay mabaadi'da guud ee lagu maamulayo sharcigan markaa si gaar ah u akhriso wuxuu ka jawaabayaa yacni dhulka cidda iskale danguud dhulka danguud waxa uu yahay noocyada uu qaybsamo yacni qofka muwaadinka ee milkiyadiisu nooca ay noqonayso yacni mabaadi'da asaasiga ee ku saabsan dhul bixinta ama ku saabsan guud ahaan dhulka iyo maamulkiisa sharcigan ayaa sheegayo sharcigan markaad akhriso xilligaas waxa uu awoodda maamulka dhulka leh isticmaalka rasmiga uu siinayo wasaaradda howlaha guud halka awoodda maamulka dhulka leh isticmaalka ku-meelgaarkana uu siinayo dawladda hoose noocaas ayay ahaaday weli sharcigan wuu jiraa marka laga reebo waxyaabo yaryar oo axkaamtiisa ku saabsan sidii nuqdadan oo kalantood sharcigan lama nasakhin okay waxa xigo waxa waaye sharci lambar 10 ee soo baxay 17 bishii 12aad 1980 sharcigan waxa uu adkeeyey ma nasakhin sharci lambar 41 ayuu adkeeyey qodobkiisa koobaad ee sharcigan waxa uu leeyahay ayada oo sharci lambar 41 sidiisii oo u jiro maamulka dhul bixinta waxa yeelanayo dawladda hoose micnaheedu waxa waayay
arrinta awoodda maamulka ee ay iska laheeday wasaaradda howlaha guud gaar ahaan dhulka damanyaalaha loo yaqaano ay iska laheeda kaliya intaas waa la bedelay laakiin sharciga intiisi kale sidiisa ayay u taagan tahay sidaas waaya micnaheedu okay sharcigan awoodda maamulka dhulka labadiisa nuucba waxa uu wada siinayaa dawladda hoose yacni dhulka oo deegaanka oo la dego laba nuuc waaye degsiimo rasmi ah iyo degsiimo kumeel gaara ama dhul leh isticmaal rasmi ah iyo dhul leh isticmaal kumeel gaara oo laga wada damanyaale iyo murjibaalo labada nuucba dawladda hoose iskugu keena intaas ayuu ka bedelay sharci lambar 41 laakiin intii kale ka soo hertay sidiisa ayay u jirtaa sharcigan asigana waa sharci dhaqangala oo wili active ah oo in lagu dhaqmo lagu khasban yahay okay sharci lambar 61 waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo sharci lambar 61 inta aanan u gudbin sharci lambar 10 wuxuu si gaar ah ugu saabsanay dhulka muqdisho gobolada ma khusaynin sharci lambar 41 sharci lambar 61 nuxurkiisu waxa waaye sharci lambar 10 oo asugu si gaar ah ugu saabsanay dhulka muqdisho oo aan lagu dhaqan karin gobolada dalka in lagu baahiyo gobolada dalka intaas ayuu ximbaarsan yahay sharcigan sharci lambar 61 nuxurkiisu waxa waaye in sharci lambar 10 oo muqdisho ku koobnay la go'aamiyay in lagu baahiyay gobolada dalka sidaas darteed sharci lambar 10 in kastoo muqdisho ay ku qoran tahay waa sharci lagu dhaqaayo guud ahaan gobolada dalka ayada oo laga duulayo sharci lambar 61 ee soo baxa 10kii bishii 11aad 1981 waqtiga dhamaada la leeyahay sharci lambar xeer aan dhii rabaa xeer madaxweyne lambar 48 bis ee soo baxay 1kii bishii 981 xeerkan waa xeer yani lagu dabaqaayo sharci lambar 10 sharci lambar 10 يعني asiga laftirkiisa wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu soo saari doonaa xeer lagu hergelinayo sharcigan sharci lambar 48 ama xeer lambar 48 waa xeer aad muhiim u ah oo sheegaya dhammaan howlaha ama habraacyada lagu maamulayo dhulka laga bilaabo soo codsadaha dhulka ilaa dukumentiga laga soo saaro xataa hadduu khilaaf yimaado hababka loo xalinayo sheegayo xeerkan waa xeerka lagu aasaasay guddiga loo yaqaano guddiga xalinta khilaafaadka ama guddiga dacwooyinka dhulalka sidaas uu sharcigu u leeyahay magac kale laakiin hadda xalinta khilaafaadka oo saas hadda leeyahay ma aqaan meel laga keenay laakiin sharcigu wuxuu leeyahay dacwooyinka dhulalka okay qodobkiisa 28 aad ayuu u muhiim u yahay waana sharci dhaqangal ah waxaan rabaa oo xigo dekreeto madaxtooyo waxaa xusid mudan in 1984 madaxtooyada Soomaaliya ay soo saartay dekreeto aad u malaysid in itijaahi ama siyaasadii dhulka laga lahay wax badan ay ka bedeshay taas oo nuxurkeedu uu yahay in gooflayaasha dhulka iskale laga heshiiyo markii hore nuxurku wuxuu ahay in dawladda dhulka iska leedahay door badan oo una goofluhu ku lahayn laakiin dekreetadan wax badan ayay bedeshay ayada ayaana hadda malaysaa in laga duulayo okay arrimo muhiim ah okay sharciyada ku xusan lambar C waxaan ka wadaa sharci lambar 41 sharci lambar 10 xeer 48 xeerarkaasi oo dhan waa xeerar ku soo baxay system yani iyadoo dalka uu ka jiray nidaam ka duwan nidaamka hadda dalka ka jiro hayashee iyadoo sidaas ay tahay waxa lagu khasban yahay in la dabaqo si waafaqsan qodobka 139 dastuurka kumeel gaarka sababtu waxa uu qodobkaas wuxuu leeyahay xeerarkii jiray oo wali wax bedela aynan jirin in kastoo nidaamka uu isbedelo federaal la qaatay sidooda loogu dhaqmaa ilaa laga helo sharciyo ka bedelo marka laguma marsiyoon karo dee wadanka markaas ishtiraakiya ka jirtay iyo sharciyada noocaas waa iyo laguma marsiyoon karo sidooda loo dabaqaa dastuurka oo federaalka hadda lagu qaatay laftirkiisa sheega sharciyadaas in la dabaqaayo okay waxaan rabaa bixinta dukumentiyada warka waan iska soo koobaya waqtiga iga dhamaaday bixinta dukumentiyada يعني waxa waayay markaad aad u fiiriso waxa wax badan laga duulaa dekreetadii 1984 yaa wax badan laga jaan qaadaya sidaas darteed waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda jiro waxa waayay
in aan loo aaba yeelin tirada dhuldhuleedka qof kasta la siinaayo halka sharciyada oo dhan ay isku waafaqsan yihiin qofka in buqcad uu ku noolaado uun la siinaayo hadda sidaas ma jirto 1000 boos ayaa lagu siin karaa yacni waxyaabaha hadda jiray ka mid tahay okay inay caadi noqoto ka ganacsiga dhulka bannaan sharciyadaas oo dhan oo hadda aan soo sheegnay dhulka bannaan in laga ganacsado ma bannaane waana sababta ugu muhiimsan ee keenaysa oo badinaysa dacwadaha sababtu waxaa waaye waxaa dhacayso hal boos in 10 qofood oo kala duwan oo aanan deganin ay isku wareejiyeen qofkii booskeedii ma tagaana marka waxaa waaye muranada waxyaabaha ugu badan oo keenay ka mid tahay waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha hadda jiro in aan la dhowrin shuruudaha laga rabo weydiistaha dhulka waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha hadda jiro in aan la soo laga soo dhalaalin waajibaadka la siiyaha dhulka waxyaabaha hadda jiray ka mid tahay in aynan jirin jaangooyo guud ee dhulka lagu bixinayo ayadoo sharciyadu ay leeyihiin qofka dhul la iska sharciyeynaa ma jiro yacni waa in dawladdu marka ugu horraysa jaangooyo ay samayso la yidhaha meel hebel waa la deegaamaynaa deegaankaasaa loogu talagalay dadkaa la dejinayaa la soo weydiisto la siiya sidaas waay laakiin hadda ma jirto nin walba si gaara ayuu goofkiisa u sharciyaystaa ilaan door weyn ayuu goofluhu ku leeyahay si waafaqsan dekreetada 1988 dhulka ku leeyahay waxaan rabaa gunaanadka 4 arrimood ayaan ku talinayaa waxaan ku talinayaa kow in dawladda federaalka Soomaaliya ay dejiso siyaasad guud ee heer qaran ah si waafaqsan qodobka 43 ee dastuurka ku meel gaarka qodobkaas oo soo sheegnay dawladda wuxuu siinayaa tilmaan ah inay siyaasad qaran dhulka ay u dejiso maadaama dhulka uu muhiim yahay siyaasaddaas weli lama dejin iyadoo maamul goboleedyada waxa la tashanaa qodobkaas si fiican uga akhrin doontaan in tilaabada sharci oo la qaadayo noocay rabto ha noqotee in la waafajiyo sharciyada hadda jiro okay in dib loo abuuro guddigii dacwooyinka ee ku xusan qodobka 28aad ee xeer lambar 48 meeshaan tilmaantan sababtan u bixiyay waxa waaye in dul istaagan u baahanahay san sheegna xeer lambar 48 wuxuu sameeyaa guddiga dacwooyinka waxa la yiraahdo ama guddiga dhulalka yuu sameeyaa marka fiirisa qaabka uu sameeyaa qaab wuxuu u sameeyaa micno badan sababtu waxa waaye khilaaf kasto oo imaado dhul ku saabsan wuxuu noqon karaa khilaaf ka yimid dhinaca maamulka dhulka sidaas darteed waxaa xubin looga dhigay agaasimaha waaxda maamulka dhulka waxaa laga yaabaa khilaafka inay sabab u noqoto farsamo inay sabab u noqdaan laga yaabaa waxaa xubin looga dhigay agaasimihii waaxda farsamada dhulka waxaa laga yaabaa inuu noqdo khilaafka tilaabo sharci darre loo sameeyey tilaabo sharci darre oo la sameeyey inuu khilaafka sabab u noqdaan laga yaabaa sidaas darteed garyaqaanka guud xibin ka socoto ayaa xibin looga dhigay waxaa laga yaabaa khilaafku inuu keeno waxyaabo xiriir la leh deegaanka iyo daagaamaynta iyo waxyaabaha amniga ku saabsan waxaa xubin looga dhigay taliyaha ilaalada deegaanka okay waxaa gudoomiye ku-xigeenka duqa muqdisho gudoomiye ku-xigeenka duqa ee arrimaha bulshada shantaas xubin uu ka kooban yahay qaabka u samaysan yahay meel lama soo dayn baa sabab kasto oo keeni karta khilaafka cid xalkeeda qayb ka qaadan laheeday ayuu sameeyay hadda maanta noocaas uma dhisno dad iska caadiya oo iska dudaaya camal iska ahaa meesha la geeyay marka in habkii loo dhiso lana soo celiyo xal badan ay keeni kartaa waxaan rabaa sharcigan wuxuu iftiraadiyey qodobka 28aad inay suurtagal tahay in dadkaas laftirkooda ay khaldanmi karaan sidaas darteed maxkamadda sare ayuu awood u siiyay in go'aanadooda ay kormeerto okay halkaas ayaan ku soo koobayaa waa dhamaataba salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad u mahadsan yahay abukaate cabdillaahi muxiidiin dudaaye sida fiican uu soo jeediyey presentationka waqtigiina waa ku dhameeyey hadda waxaan siinaynaa comment iyo tacliiq waxyaabay ay ka hadleen labada soo jeediye ayaan siinaynaa garsoore cabdilxaq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان قفل بوسكو وكفدي أي كسلامين
waxaan u malaynayaa inaad markhaati ka eedeen sidan meesha ku yimid marka wixii oo culays u yimaada waa la isku cudurdaara insha allah waxaan rabaa laba dhinac inaan ka sameeyo faaladeeda qayb waa qaybta ku saabsan sharciyada lagu maamulo dhulka ama xiriirka la dhulka uu dalku lahaay sida idinkaga muuqato shaashada koraba waxaa saameyn ku leh dhulka 8daas sharci saad ka wada aragtaanba waxaa ugu horeeyey sharciga waxaa jiri jiray ordinance wax la yiraahdo ama awaamir uu soo saaray oo lagu maamuli jiray dhulka oo uu soo saaray ministeriga Talyaaniga joogay dalka kadib waxaa lagu sheegayaa sharcigaas ku jiro sharcigaas wuxuu soo baxay 34 meelahaas kaas asoo dhameystiran macluumaadkiisa ilaa hadda anigu ma dul istaagin kaas ayaa jiray kadib kan hadda meesha ugu koreyso ku qoran oo soo baxay 55 law number la yiraahdo xeer number 12 bishii May 1955 wuxuu ka hadlayay la wareegiddan guud waa sharciga wuxuu ka kooban yahay 7 qodob meesha ku taalo wuxuu ku qoran yahay afka Talyaaniga la wareegiddaas ayuu ka hadlayay waxaa comment aan igu jirta meeshaas marka oo raba inaan raaciyo mushkilad weyn ayaa ka taagan inuusan aad meeshaasi faahfaahin badan ay ku xusneen waaqicii markaas jiray dalka ku jirayna wax badan iska bedelay nidaam cusub oo dalka hadda oo federaalkii wax badan u qaatay systemkii hore laga soo wada guuray waxaa dhacday marka hay'adihii dawladda iyo dhulkii danta guud ahay danta guud dhulkeeda wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood dan guud oo gaar ah oo hawaaye cid ayaa iskale midalan dhulka ay leeyihiin hay'adaha dawladda waa dhul dan guud haddana wuxuu gaar u yahay hay'adaasi dawladda iskale ama loo cayimay iyo dhul dan guud oo xora ah dhulka dhan ee dawladdu mas'uul ka tahay oo aanan loo sameeynin maxaan ku raadayay cid gaar ah isku maawnayn ama dhulka danta guud loogu talagalay in dadku ay wada isticmaalaan sida wadooyinka wixii la mid ah oo cid gaar ah aysan gooni u lahayn mushkiladda taagan marka waxay tahay annaga gaar ahaan waliba aan amaliyan u aragnay aniga shakhsiyan waliba arkay maxkamadda marka lagu jiro waxaa ku imanaya kiis ama dacwad leeyahay waa laga kaaftoomay dawladdii iska lahayd dhulka ayaa waxay leedahay ka kaaftoomid mas'uul ka mid ah mas'uuliyiintii markaas hay'adaasi madaxda u ahay ayaa wuxuu qoray bal kaba darane kiis oo waxa dhici kara marka hore la yaab oo ah inuu qofka sameeyay uu yahay qof mu'assasa kale ka ahay madax ka ahay oo ku sima ka ahay mu'assasadan kale inuu qoray ka kaaftoomid dhulkii hay'adii uu ka ahay ku simaha ka ahay marka waxaa marka u baahan in la helo hanaan faahfaahsan oo ku saabsan ama tixraaca oo laga tixraaco qaabka ka kaaftoomida dhulka danta guud ee gaarka taas marka iyadoo sharcigaasna wax badan laga soo dheeganayo ama laga soo xiganayo content iyo shantii sharcigan kaleento meesha ku qoran 67 wuxuu ka hadlayaa social protectionka oo ay ku jirto danta maxaan ku hantida uu leeyahay dadku ay leeyihiin ayuu ka sheekeynayaa kan kale waxaa taabtay asxaabteedii horeysay intaas kale mar raba inaan ku sii dheeraado waxaa xusid mudan dhulka hadda dhibaatada ugu badan waxa keenay in aad la isugu sii qabsado oo qaalin noqdo waxa waaye ka ganacsiga wuxuu iska noqday xoolo laga ganacsado sharciyada dhammaan ka hadlayna kulligood waxay diidayaan in laga ganacsado dhulka ka ganacsiga dhulka waa arin aanan sharci ahayn dhammaan sharciyada dalka oo 8daas sharci marka laga reebo kan ugu dambeeyay 8aad oo ka hadlaya badda oo asigu aan marnaba noqon karin wax la milkiyo ama la gaar loo yeesho inta kale wax laga ganacsan karo ma jirto qofkii la siiyo waxa la yiraahdaa 12 bilood ayaa ku qoran dokumentiga dawladda hoose bixisa adartan ee sabarlooga loo yaqaan qaybtiisa u hooseysa waxa ku qoran qofka idil waxa xusuusinaya fiiro gaar ah waxaad ku dhisan kartaa muddo 12 bilood dhulkaasi ee fasax la'aan marka waxa uu maraysaa saaxiibka Muuse aad u shaqeynay taas waa mid marka la helo in laga ganacsan karin dhulka beeraha oo goofleyda loo isticmaalo asagana dhibaato badan ka taagan oo ah in goof dhul 500 oo boos 1500 2,000 uu leeyahay qof ana iskala goof aan oo uu rabaadana in maxkamadii ay xukunto oo milkiyad aan lagu xukumo sidoo kale sharciga beeraha ee meesha kor ku xusan adartaan asagana waxa uu mamnuucaya dhulka beeraha wuxuu leeyahay waa ruqsad ku meel gaar ah oo qofka la siinay ma ahan milkiyad dhulka beeruhu milkiyad ma ahan goof wax la yiraahdo oo milkiyad lagu yeeshana ma jiro dhul 500 2,000 oo boos oo milkiyad lagu qaatana ma jiro hal midaan rabaa markaan u laabto arinta dawladda hoose ku saabsan iyo guddiga sharciga soo sheegay qodobka 28 sharciga 48 bis
ayaa ka hadlayo guddiga dacwooyinka dhulka magaca saxda ee guddigu leeyahay waa kaas kan hadda jira laftiisana magaca waxa uu leeyahay waxa waaye waa kaasuu ka agdhow yahay guddiga dacwooyinka dhulalka iyo guryaha la isku haysta gobolka banaadir ayaa la yidhahdaa guddiga khilaafaadka wax lama jiro aanay bixintu lafta dhib ayay ku leedahay macnihii maxaa yeelay haddii la khilaaf aad sheegto waxaad abuurtay markiiba inuu dhibaato jirto guddigaasi wuxuu soo bilowday xilligii gudoomiyihii gobolka banaadir ee hore ahaana duqa magaalada muqdisho tarsan maxamed maxamuud nuur tarsan kadibna sidaas ayuu ku shaqaynayay dhinac waa looga baahan yahay horta wuxuu qabtay howl culus oo maxkamadihii inay wax u dirsaan haddase waxaa muuqata haddana inuusan maxaanku rahdaay awooddii loogu talagalay iyo qaab dhismeedka inuu ka duwan yahay gebi ahaanba kii uu tilmaamayay sharciga 48 bis 28 qodobkiisa 28aad oo ah dadku imaanaya boosaskooda qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa dadka ku xusan guddiga ee 5 qof ka kooban mid walba inuu ku imaanayo booskiisa waana dad loo baahnay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka banaadir oo ah arrimaha bulshada oo ah qofkii arrin bulsho maadaama ay tahay dhulka mas-uulka ugu sarreeyay ka ahay qaybtaas oo u qaabilsan duqa magaalada waxaa kaloo xubinka agaasimiye waaxda dhulka ayaa ku jira waxaa kaloo xubinka ah gariiqaanka guud ah ciddii sharciga u matalaysay dowladda waxaa kaloo oo xubinka ah gudoomiye taliyaha qaybta guud ee gobolka intaas dadka dhan waxay muujinaysaa marka qof walba inuu macno ku fadhiyo inuu guddiga xubin ka noqdo uusan guddiga iska samaysnayn haddase sida uu shaqeeyay iyo guddiga wuxuu iska noqday guddi aan sharcigaas ku dhisnayn balse loo cuskan karo sharciyadiisa inuu gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada uu u wakiishay farsamo ahaan inay ka caawiyaan hawshaasi maadaama mas-uulka ugu sarreeyay waxaa waqtiga iga dhamaaday intaas ayaan kusoo wixii tafaasiil ama su'aalaha ayaan ka dhex sheegi doonaa aad baad umahadsantihiin assalamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم aad u mahadsan yahay cabdilxaq sida wanaagsan ee commentiga maaragtay faalada yar ee muhiimka ah oo sharciyada oo dhan ka sameeyay si guud sharciyada ka hadlaya maaragtay dhulka sideedda uu sheegay garsoore cabdilxaq weeye laakiin sideeddaas oo isugu jira kuwa gaarka ah baan ka hadlaynaa markaan saa leenahay kuwa guud waxa weeye iyagu waa la isla yaqaanaa waa dastuurka oo isagu had iyo jeer principles ah oo maaragtay si guud uga hadla xuquuqaha iyo waxyaabaha ka hadla iyo xeerarka habka oo lagu maamulo dacwada oo iyagu maaragtay markii dacwadda la qaadayo iyo garsooraha waxyaabaha laga rabo iyo inuu dokumentiyada eego iyo waxyaabaha noocaas marka laga soo tago sideeddaas oo cabdilxaq idiin sheegay ayaa taariikhdu marka shuruucda la akhriyayo qaraarka idaariga ah ee 1955 ayaa ugu horeeya waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku qoranna waxaa ka mid ah la wareegidda dhulka in la wareegi karo oo macnaha dawladdu dan guud ay ula wareegi karto beriga wisaayada talyaanigu uu maamulayay muqdisho ama koonfurta Soomaaliya sharciga ku xiga waa sharciga ilaalinta bulshada in laga ilaaliyo dembiyada khatarta ah serious crimes oo 1970 soo baxay kaas wax kale kuma qorna waxa ugu muhiimsan ee ku qoran qodobkiisa saddexaad wuxuu sheegayaa in dawlad dhammaan dhulka iyo biyaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya aanay hay'adda dawladdu lahayn ama qof qaanuuneedka waxa iska leh dawladda macnaha waxa ka jira Soomaaliya waxyaabaha la yiraahdo seeraha ama cashiimooyinka waqooyiga laga yiraahdo xaggana goofley baa laga dhahaa waxyaabahaas ayuu diidaya qabyaaladda ku saabsan marka sharciga si guud waxyaabaha qabyaaladda ka dhaca ee maaragtay biyaha la isku dilay ceelasha iyo waxyaabahaas ayuu si fiican uga hadlayaa sharciga saddexaad waa sharciga qaybinta dhulka magaalada Sheekh Saalax si fiican uga hadlay dhulka magaalada oo hantida guud iyo hantida gaarka ayuu qaybinayaa waxyaabahaas ayuu si fiican uga hadlayaa waxa ku xiga sharciga beeraha oo isaga hadda 1975 soo baxay waxyaabaha ugu muhiimsan uu sheegayo waxa ka mid ah in maamulka dhulka uu siiyay wasiirka beeraha wuxuuna ku xadiday ruqsadda beeraha muddo 50 sano ah oo la cusboonaysiin karo ayuu ku xadiday cabirka beeraha la bixinayo 10 hektar waxaasoo dadku akhriyi karaan
sharciga ku xiga oo ugu muhiimsan waa sharciga lambar 10 baa la yiraahdaa oo maxkamaduhuna aad u isticmaalaan oo soo baxay 1980kii oo abukaate dudaaye uu si fiican u sharaxay oo dhulkana u qaybinaya damayaalaha iyo munishibaalaha damayaaluhu iyo munishibaalaha sharciga ku xiga waa xeerka habka maamulka iyo qaybinta dhulka gobolka Banaadir 1980kii si fiican kan loo sharaxay sharciga ku fidinta ayaynu xoogaa dul istaagaynaa sharciga ku fidintu wax kale ma sheegayo wuxuu sheegayaa maadaama gobolka Banaadir qura uu dhulkaasi ku saabsanaa in jamhuuriyadda oo dhan uu ka shaqeynayo 1980kii wixii ka dambeeyay jamhuuriyadda oo dhan inuu ka shaqeynayo waxyaabaha dhulka la bixinayana in jaangooyada uu Sheekh Saalax ka hadlay oo toon balaan la yiraahdo in lagu saleeyo ayuu si fiican u muujinayaa dhulkana in la jaangooyo oo loo qaybiyo degsiimo warshadaha ganacsiga danta caamka nabadgelyada iyo howlaha adeega in laga reebo dhul dan guuda marka dhul la bixinayo oo uu duqa magaalada dhul bixinayo inuu dhulka qaybo kamid ah u jaangooyo waxyaabaha aynu soo sheegnay arimaha kale iyana muhiimka ah ee dawladda hoose laga rabo waxa kamid ah in nuqulada qoraalada dhul bixinta ay u geyso maxaa la yiraahdaa diiwaanka guud ee yaala wasaaradda howlaha guud si loogu xanaaneeyo wasaaradda howlaha guudna inay ku kormeerayso arimaha jaangooyada oo duqa hadduu iska bixiyo dhul macnaha loogu talagalay jaangooyada guud in lagula xisaabtamayo arimahaas ayaa ugu muhiimsan sharciga ugu dambeeya waa sharciga badda Soomaaliyeed oo 89kii soo baxay kaasina wax kale ka hadli maayo in wasaaradda la yiraahdo wasaaradda kalluumaysiga iyo gaadiidka badda ay maamulayso waxyaabaha dhulka xeebaha ayuu ka hadlaya hadda waxa la yiraahdaa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ayaa la dhahaa aad u mahadsantiin waxaan u furaynaa niqaashka dadka ayaan u furaynaa ما dadka la siinahay waxaan siinay haye أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمد علي علي. جودهان أنت هول كجوج توقف كستو بسوشين كوجوج إيو يعني حلكو وتأيام كسلامي سيجارة وحنو مدعينا يا تيم كبان الكفريرون تي أو نوسو جدي شو بيجان سوين نوها كتير. سؤالها عن قبو وهل سؤال مركلة هلا يشروع ذلك sida tiimka banalka aad noo sheegteen shuruucda dalka guud ahaanba waxay diideen yani ka ganacsiga dhulka banaan waa mamnuuc sida asalka ah haddana xilligan la joogo isaga wuxuu yahay ba dakhliga yani source wuxuu ka mid noqday ilaha dhaqaalaha dadka Soomaalida uu ka soo galo waxaan rabaa marka maadaama shuruucda guud ahaanba isku waafaqeen in ka ganacsiga dhulka banaan uu aan la ogolayn dhulkan asal ahaan dawladdu ay leedahay haddana la soo saaray dekreetada 1984 oo ayadu tilmaamayso in yani dadka caadiga ahaa dhulka asal ahaan ay yani lahaanshaha ay door muhiim ku leeyihiin waa maxay dekreetada yani doorka dekreetada ay ku leedahay yani shuruucda kale ma shuruucdii kale dekreetadaas ma wixii awood u yeelatay inay nasaqdo shuruucdii ka horeysay mise waa dekreeto aan lahayn yani halbee qaanuuneed oo iska waafaqday caadada hadda jirto waxaan siinaynaa abukaati Saciid si kureeji bismillah su'aal yar oo kooban aan rabaa inaan soo gudbiyo sida aan wada ognahay sharcigu waxa uu tilmaamayaa qofka haddii dhul la siiyo dhulkaasi muddo 6 bilood ah haddii uu ku dhisa waayo in lagala wareegayo sidoo kale wuxuu tilmaamayaa dhul qof laga wareejiyey in aan qof kale la sii karin sidaas ayuu sharcigu tilmaamayaa
dhulkan ma ka mid yahay dhulka qofka sida sharci 6 bilood ku dhisan waayay ee sida loogala naqday siismadii ma ka mid yahay dhulka aan la ogolayn in qof kale lagu wareejiyo masa sidaas aan loogu wareejin karaa qof kale waa mahadsantiin su-aasha dambe ku celi Siciid ma ka mid yahay dhulka aan la ogolayn in qof laga qaado ee qof kale lagu wareejiyo dhulka muddada 6 bilood ah lagu dhisan waayay ee sida loogala noqday siismada qofka ugu dambeeya waxaan siinaynaa cali Soomaaliha baanalku waa mahadsan yahay su'aal baan qabaa si gaar ah waxaan u weydiinayaa ustaad Saalax Dhiblaawe dhulka ka sheekaysay iyo qeybihiisa waxaana ka mid ahaa dhul xeebeedka marka haddii dacwadu ka dhalato dhulka noocaas uu ka mid yahay dhul xeebeedka wadanka iyo dal kale oo kale tusaale ay ka dhalato yay tahay sharciyan cidda la rabo inay dhaqaajiso ama ay ku matasho dawladda ma xafiiska xeelaliyaha guud baa iskale mise xafiiska gareeqaanka guud baa iskale haddiise uusan jirin model lagu heshiiyey oo xafiiska xeelaliyaha uu leeyahay oo kale maadaama dawlad goboleedyadoo kale ay gareeqaanka guud iyo xeelaliyahu isku mid ay u yihiin tusaale dastuurka Jubbaland oo kale xeelaliyaha guud waa gareeqaanka guud golaha wasiiradana wuu tagaa dacwadahana waa ogaa ma ka naa'ib noqon karaan oo ma ku matali karaan mid kale dhulka cirka oo kale hadda waa meel deegaan ah oo saldhigyo militarina laga sameeyo deegaan ahaanna loo dago cilmi baaristaada tala soo jeedin ahaan ma ku jirtaa in sharci laga sameeyo gaar oo dhulka cidda bixin karto digitaankiisa iyo kireysigiisa maasan intaas ayaynu ku gabagabeynaa insha Allah taala waxaan siinaynaa Dr. Saalax بسم الله الرحمن الرحيم أنا دور شيء كجواب يا كو ذكرياتنا أنت كوسابسن ذكرياتنا هرتا والله مقلاه وح أو شرعي الله ما هايو ومقرة فافنت الرسمية وأنا أكتين دوكومنتي ده والله سمايا مركز منك ذكرياتنا أو فافن رسمي كوساب بحضي أنا لو ده أنه ما هايل ilaa hadda agtana digritaasu kama shaqeyso marka waxa valid ah sharciyada saxda ah oo lagu shaqeeyaa valid ah guddiga dhismihiisa la sheegay horta kuma jiro qaybta farsamada kuma jirto waaxda farsamada ee dawladda hoosena kuma jirto kumana jiro ciidanka deegaanka ninka mas'uulka ah waa booliska ninka ku jira أنا وبوليسك نحوه هاي قفك كجرا كان نحوه هاي كلنا وحاول يسيد أو تلمام هاي قدبك لبعتن يسيدت لو نحوه هاي أفرتن يسيدت بيس halkaas aad ka waan kartaa marka labadii agaasimaha waaxda xiriirka dawladda dadweynaha qofkaas ku jira agaasimaha waaxda xiriirka dadweynaha saddexaas marka waxa ka imanayaan dawladda hoose ku xogaanka arrimaha bulshada maamulka qofka ah dhulka iyo agaasimaha waaxda xiriirka dadweynaha saddexaas dawladda hoose ka imanaya labada kalena jihooyinka la sheekay imanayaan guddiga hadda samaysan ma aha guddigan taa waa inaan ogaano waa guddi aan ahayn guddigan sababtoo ah guddigan wuxuu leeyahay awood madax bannaan dacwadii uu galaa toosa waxaa loola soo aadayaa maxkamaddaa loola soo aadayaa kan waa guddi farsamo tala bixinu wuxuu soo siinayaa duqa magaalada duqa magaalada soo saara dikreetada marka yaa lagu mashquulin labada guddi isma leh shughul iskuma leh taas waa midaas dacwada badda hadda waxaad na gelisay dhulkii aan ku jirnay ma qusayso marka waa fatwo kale meeshana waa laysku haystaa oo
xaaraaliya xataa way soo fiirinayaa marka taas waa ka tagaya aniga waa mahadsantihiin waxaan siinaynaa jawaabta kale bismillah haddaan si kooban oga jawaab waqtiga aad looga sheeganaya arrinta ku saabsan qofka sharciga markuu leeyahay 6 bilood haddii uu ku dhisan waayo waa lagala wareegayaa ama laga ceshanayaa haddii marka ma saameyni qodobka kale oo dhahayo qofkii dan guud haddii wax lagala wareego haddii dib loo celinayo dhulkii danta guud loo qaaday markii hore oo dantii guud haddana dib looga saaraayo waa in ciddii markii hore laga qaaday loo celiyo qofkii ma ka mid noqon karaa xuquuqdaasi sharcigan danta guud loola wareegaa dhahayo qodobku wuxuu si cad u sheegayaa markii horeba la wareegidu inay ahayd dan guud kanna waa baylah iyo dayac xaggiisa ka yimid oo laga qaatay waa muwaadin mar kale hadduu u baahdo dib ayuu u socodsan karaa dhul kasta oo u baahdo oo uu soo dalbado procedureki loogu talagalay iyo waddadeedii ayuu maraya balse dhulka danta guud loola wareegay ayay ku xiran tahay ama ay ku kooban tahay arrinta qof kale looma wareejin karo ama haddii dhulkaasi danta guud loola wareegay laga saaro dantii guud looma celin karo qof kale marka la leeyahay shardigaas wuxuu ku kooban yahay qofkii asal ahaan dhulka markii lagala wareegayayba loogala wareegay sabab ku dhisan dan guud waad mahadsantihiin commentiga ugu dambeeya waxaan siinaynaa qareen dudaaye waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan wax yar commenti gareeyo arrinta ku saabsan dekreetada oo 1980 iyo 4 u malay maayo inaan hadda gaarna heer sharci la been abuuro u malay maayo dabcan waa laga yaabaa bulutiinooyinka in hadda aanan laga haynin laakiin bulutiinooyinka laftirkoodii yan la hayninba maanta ma jirto faafinta rasmi ah oo dhammaystiran cid dhihi karto sanad kasto faafinta rasmiga ee ku saabsaneed aniga ahaaya cid dhihi karta ma jirto marka waxaan isleeyahay dabcan su-aashu waa muhiim waxa iyada ka horreeya waxay ahaayeen sharciyo ayaduna waa iska dekreeto maadaama sharciyadii ay khilaafayso maxaa micno qaanuuneedahoo ay leedahay waa su-aal muhiima oo yacni nuxurkii sharciyada miyay nasakhda mase ma nasakhin waa su-aal aada muhiim u ah laakiin waxaan isleeyahay arrintaasoo dhanba hadda waxaa isku fuuqsaday dastuurka waxyaabaha hadda uu sheegaya sida qodobka 43aad iyo qodobka 26aad waxa uu muwaadinka uu qirayaa milkiyad rasmi ah dhulka inuu ku yeelan karo taas micnaheedu waxa waaye isla nuxurkii ay dekreetadu ximbaarsaneed waayo marka waxaa muhiim hadda in laga fikiro shuruucda hadda la samaynayo in dastuurka la waafajiya intaas unbaa muhiima waa mahadsantihiin bismillah doodii noo soo bilaabantay maanta intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waa mahadsan yahay shirku aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin panelka muwaadin waxaa